qoraaygu wuxuu leeyahay avoid the second gas paralysis. Second gas paralysis wuxuu ka wadaa go'aan markaa qaadanaysid go'aankaaga waa inaad ka labalabeen inaadan dhihin okay choices badan inaadan gelinin makan baan qaataa kaas baan qaataa yani xagee ka bilaabaa go'aan waa inaad qaadatid noloshu go'aan kama soo harto marka dadka adduunka noloshooda ku guuleystay waa dad go'aan ku socda go'aanka marka waxa laga yaabaa in uu qaldan yahay laakiin waxa ka daran go'aan la'aan inaad ku noolaatid marka waxa loo baahan yahay in aad mar walba aad iska ilaalisid go'aan la'aan inaad noqotid choices fara badanna aadan hortaada dhigin laakiin go'aanka qaado haddaad hore u socotid oo markaad aragtid inay go'aanka inuu qaldan yahay ka soo laabo nolosha markaas macaan bay ku siinaysaa marka wuxuu aad ugu soo celinayaa tusaalooyin fara badan oo siinaya in qofka uu iska ilaaliyo go'aan markuu qaadanayo inuu walbahaaro maanta dhan uu ku soo laalaabto hore laakiin inuu qofka u socdo qodobka kale oo meesha ku jira isagana waan rabaa inaan la wadaago waxa weeyaan qodob caafimaadka ku saabsan wuxuu ku leeyahay get a good night's sleep inaad habeenkii hurdo fiican aad hesho waa muhiim hurdada iyo maskaxda oo isla shaqeeyaan marka haddaad habeenkii soo jeedo hurdo la'aan ay kugu dhacdo subaxii inaad shaqadii qabsato way kugu adag tahay marka waqti kugu filan oo marka shaqada subax marka u soo kacdo aad ku qaban kartid waxa weeye ayaa loo baahan yahay inaad geliso nafsadaada marka qodobkan waa qodob muhiim ah isagana qoraagu uu ku celcelinayo yani dadka oo leadership dadka hogaamiyaasha ah ama adduunka ku guuleystay oo hurdadu ay ku yartahay go'aamadooda xataa way yaraadaan si fiican uma qaadan karaan go'aamo qaldan bay qaataan go'aamo kalsooni la'aan ay ku dhisantahay qaataan marka waxa loo baahan yahay habeenkii hurdo fiican inaad heshid si walba xaalad walba aad ku jirtid iyo role walba aad leedahay waa muhiim taas inaad mataqaana xoog aad saarto